bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaasha xishmada iyo qadarinta naga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo si walboodna la socotaan halkani waa shabakada shacabka TV oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya falanqeynta siyaasadda dalka iyo caalamka intiisa kale kulan hagaagsan qodobada xiisaha badan ee xiliga kan shacabka TV idin hayo waxa ugu dooron qaar kamida xisbiyada siyaasadeed ee dhaxdhaxaadka ka xaaladda dalka oo sheegay in ay taageersan yihiin murashaxnimada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo oo dhawaan la filayo in uu si rasmi ugu dhawaaqo in uu yahay murashax madaxweyne u taagan talada dalka inuu dib ugu soo laabto madaba in ay rumowdo riyada ay ku taamayaan in ka badan 15 milyan oo Soomaaliyeed ah in Farmaajo uu mar kale noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan idinku soo gudbin doonaa warkeena xoga xaqiiqda ku saabsan oo aan ku eegi doono gunta siyaasadda Soomaaliya arimaha ka qarsoon shacabka Soomaaliyeed iyo xaqiiqda dhabta ee doorashooyinka dalka Turkiga oo booliis gaar ah ka soo dajiyay magaalada Muqdisho kuwaasi oo loogu talagalay in ay dawladda Soomaaliya ka gacan siiyaan arrimo ku saabsan xaqiijinta ammaanka magaalada Muqdisho waqtiga doorashooyinka inta lagu guda jiro taliyaha xooga dalka General Odwa Yusuf Raagana waxa uu amar ka soo saaray gaadiidka ciidanka qalabka sida si gaar ah militariga in aanay lagu isticmaali karin magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka sifo sharci dara go'aanka cusub ee taliyaha ciidamada xooga dalka iyo howlgala durbaba ka bilowday magaalada tan Muqdisho ayaan warka ku eegi doonaa qodobada kalena waxa kamid ah xiisaha leh maamulka NFD ee Soomaalida ee ka dhisan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ama dawladda Kenya maamusho balse asalkiisa Soomaaligu yahay gobolkaasi waxay qorsheynayaan bulshada ku dhaqan halkaasi sidii ay ugu goosan lahaayeen dawladda Kenya Soomaaliyana ay qayb ugu noqon lahaayeen isbedel weyn oo ku soo wajahan dawladda Kenya Uhuru Kenyatta oo duufaantii isbedelka ay ku soo wajahan tahay ayaan warka ku eegi doonaa iyo sida loo filayo in NFD ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya haddii NFD ay soo laabatana ku darsa xisaabta kilinka shanaad waxaa la xaqiijinayaa in Ethiopia iyaguna ay ka goosan doonaan isbedelka geeska Afrika ka dhici doona dhawaanahan warar ku saabsan oo xiiso leh ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan shabakada shacabka TV meel kastoo aad caalamka kaga sugan tihiin kulanti wacan oo wanaagsan doodayadu waxay ku saabsan tahay daawadayaal oo shacabka TV wararkiisa aragtidiina aad ku soo cabiri doontaan sidee baad u aragtaan daawadayaal haddii 4 sano ee soo socota mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ay jecel yihiin in ka badan 15 milyan oo Soomaaliyeed in talada dalka uu markale dib ugu soo laabto waa qodobka iyaga ee dooda muwaadin haddii doorashada Soomaaliya ay noqon lahayd balse nasiib daro aysan dhicin mid cod iyo qofa mugu taageeri lahayd codkaada waa qodobka iyaga ee dooda shacabka TV waxa idin oranaya gacmo furan iyo galgaceel ku soo dhawaada muuqaalka leegin oo saara oo sii gaarsiiya saaxiibada kale ee Soomaaliyeed bal imankana aynu gudagalno qodobadii wararkaasi oo fidsan ayna gudagalno warkeena bal xaqiiqooyinka ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxay daqiiqadba u qarxayaan sida bambaanooyinka oo kale siyaasadda Soomaaliya oo marba dhinac u guurta ayaa imika isbedel weyn laga dareemaya sida intiina badan aad la socotaan oo aan wararkayaga ee hore idinkugu soo gudbin jirnay waxaa jirtay in laba garab oo kaliya siyaasadda Soomaaliya uu loolanka u dhaxeeyay marka la eego dhanka nabadii nolol iyo jamaahiirta kale ee isbahaysiga mucaaradka sheeganaya dadka qaarkiina u garan ogyihiin qaran dumis balse xaalku imika waa uu ka duwan yahay sidii hore wacaal cusub iyo mucjisooyin siyaasadeed raggii siyaasiyiinta waaweynaa ee mucaaradka Soomaaliya haatan waxay bilaabeen in fariimo qoraal iyo codba ay hawada isku marsiyaan iyagoo isbeegsanaya iskuna eedeynaya xatooyo musuq inay u adeegaan dana shisheeye ama dabadhilif ay qaarkood yihiin waa sida isku weerareen ila ku dhow dhinacyada mucaaradka oo shacabka TV la wadaagay macluumaad ku saabsan fowdada xilligan ka dhex taagan dhexdooda kooxaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxyaabaha ay inoo sharaxaan kamid ah in haatan gabigoodba aanay jirin murashax ama siyaasi mucaarad ah oo aamini karo murashaxa kale mid walbana wuxuu noqday ku siyaasadiisa ay u gaar tahay tani waxay ka dambaysay markii dalka doorashooyin uu aaday xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhinac waliba wuxuu dadaal iyo dagaalba ugu jiraa in baarlamaanka cadkiisa uu ku yeelan lahaa hase ahaatee soo xulidda xubnaha baarlamaanka oo ah mid qabaa'ilka ay hoos tagto iyo sidoo kale dawladda iyo dawlad goboleedyada saameyn ay ku leeyihiin ayay dhinacyada mucaaradku waxay rabaan qolo waliba in ay soo saaraan siyaasiyiin iyagu ay doonayaan
taasi oo keentay in dhexdooda ay kala aamin baxaan dowladda federaalka Soomaaliya. isku dhaca siyaasadeed ee haatan ka dhex oogan kooxaha mucaaradka waxay ka heshay fursado siyaasadeed oo waaweyn. tira ka mid ah siyaasiyiinta gooni goosadka ee mucaaradka ayaa lagu arkay madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qaar waxaa lagu waramayaa inay heshiisyo hordhac la galeen dowladda Soomaaliya, qaar inay dhaqaale qaateen, qaarna ay itaaldari siyaasadeed xilligan ka muuqato. kuwa kalena waxayba u kala carareen oo ay u yaaceen sida shimbiriyaha oo kale dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa ugu horeeya ee Soomaaliya deris kale ah si ay ugu soo helaan taageero siyaasadeed. intaasina waxaa si dheer iyadoo siyaasiyiin kale oo dhanka mucaaradka iyo dhanka muxaafadkaba ka tirsan haatan ay dalka dib ugu soo laabanayaan. dhanka mucaaradka xubnaha soo laabanaya waxaa ka mid ah oo doorashooyinka raba inay saameyn ku yeeshaan Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cabdiweli Gaas, barasaabkii hore ee Puntland, marna soo noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya, iyo siyaasiyiin kale oo aad u fara badan. ujeedkana waxa uu yahay in la samaysto isxulfaysi siyaasadeed si kuraasta baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare dhinac waliba ay awood ugu yeelato. hase ahaatee soo xulidda xubnaha baarlamaanka Soomaaliya waa mid adag. howshaasina waa ay ka duwan tahay sidii hore. waa midda koowaad ee xildhibaankii waxaa soo dooran doona 101 ergo. xildhibaankii waxaa la aaminsan yahay inay ku bixi karto lacag malaayiin doolar ah. dhanka nabadii nolol, xogtan Helen waxay tilmaamaysaa in murashaxiiba oo xildhibaan ah oo ay ku bixi doonto nabadii nolol lacag ka badan 5 milyan oo doolar. taasi oo mucaaradka Soomaaliya markii ay maqleen maangal ku noqon weyday, qaarkoodna waxaa lagu soo waramayaa in ay dareemeen madax xanuun iyo sidoo kale qalqal siyaasadeed oo aad u weyn. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah siyaasi xeelad ahaan ka duwan siyaasiyiinta kale ee mucaaradka, kuna caanbaxay aamusnaanta iyo sidoo kale tallaabooyinka siyaasadeed ee markaasi loodi kari waayeen kooxaha mucaaradka, ayaa adeegsanaya xeelado kala gedisan. badi dowlad goboleedyada oo intooda badan taageersanaa dhanka dowladda Soomaaliya waxa ay markale heshiisyo la saxiixdeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. heshiisyadaasi oo salka ku haya sidii loo soo saari lahaa xildhibaanada nabadii nolol ee markaasi deegaanadoodu kala yihiin dhanka gobolka Gedo, Koonfur Galbeed, dhanka Galmudug iyo dhanka Hiirshabeelle, ku darso Puntland marka laga reebo Nugaal iyo gobolka Bari. xitaa reer barigii oo ka soo horjeeda siciidani siyaasadiisa waxay haatan la sabteen oo ay ku xirteen siyaasad ahaan dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrimahaasi oo dhan waxa ay keeneen in wajh cusub ay yeelato siyaasadda Soomaaliya. dowladihii Afrikaanka iyo kuwa reer galbeedka waxa ay la kala sabteen dhanka mucaaradka iyo dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markale kulan kula qaatay gudaha magaalada Muqdisho qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya. kulankaasina waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliya iyo wixii ka dhaqan galay heshiiskii doorashada ee hore uga dhacay gudaha magaalada Muqdisho. beesha caalamka war markale ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay garab taagan yihiin xukuumadda Soomaaliya kana soo horjeedaan qulqulutooyinka siyaasadeed ee shakhsiyaadka qaar ay siyaasadda Soomaaliya foodada ku haya isku dayayaan mar kale in ay gudaha dalka ka kiciyaan. taasina waxay keentay in digniin loo kala diro qolooyinka sidaa ku caanbaxay. haddaba dhowaan waxaa sidoo kale la filayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna murashaxa ugu saameynta badan doorashooyinka dalka ee sanada 2021 in uu gudaha magaalada Muqdisho ku qabto munaasabad aad u ballaaran oo uu ku shaacin doono murashaxnimadiisa ee ah inuu u taagan yahay murashax madaxweyne dibna ugu soo laaban doono talada dalka. waxa uu noqon doonaa murashaxa ugu saameynta badan sida ila ku dhow Soomaaliya ay sheegeen. dhinaca kale qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee dhexdhexaadka ah oo ugu horeeya xisbiga uu leeyahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo xisbiga siyaasadeed ee Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhinacooda ku xirtay dhanka nabadii nolol, waxaana warar ay soo saareen sheegeen in ay taageersan yihiin qorshaha dowladda Soomaaliya ee doorashooyinka la xiriira, mana ka soo horjeesan go'aankii guddiga doorashooyinka lagu maareeyay. taasi waxay keentay in cadaadis hor leh uu fuulo qeybaha kale ee mucaaradka Soomaaliya. waxaa imankaba iyadoo aanay doorashada si sax ah loo gudagelin natiijo dare iyo guuldaro la kulmaya tiro ay ka mid yihiin Xasan Cali Kheyre iyo Xasan Sheekh Maxamuud. halka la saadaalinayo marka laga tago madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinacooda inay tartanka doorashada saameyn ku yeelan karaan Cali Maxamed Geedi, Shariif Sheekh Axmed oo isagu saameyn sida u badan lahayn iyo tiro kale siyaasiyiinta ka mid ah. waxaa sidoo kale jira rag kale iyagu saameyn badan aan lahayn sida Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Cabdinaasir Cabdulle, balse waxaa lagu tirinaya siyaasiyiintaasi kaliya iyagu inay yihiin kuwa xilal fudud u tartamaya balse codadkooda ugu dambeyn ku taageeri doona
murashax ay heshiiska siyaasadeed la geli doonaan. cabdikariin xuseen guuleed haatan waxa uu aad ugu mashquulsan yahay dhanka dowladda Soomaaliya, marar badanna waxa uu madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kale kulamadii murashaxiinta mucaaradka isugu imaan jireen isbedel ayaa laga dareemayaa oo mucaaradkii hal kulan oo balaaran isugu imaan jiray maanta waa kuwa gooni ugu shiraya gudaha magaalada Muqdisho. si waliba doorashadan Soomaaliya ka dhici doonta sanada 2021 oo aad kaga adag doorashadii hore ayaa noqon doonta mid aan dagaal siyaasadeed waxba la isugu reeban. dhinaca kale dowladda Turkiga waxa ay magaalada Muqdisho keentay booliis gaar ah oo tiro ahaan ka kooban ilaa 100. waxaa loogu talagalay booliiskaasi inay gacan siiyaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya. waxay ka caabin doonaan dhinacyada farsamooyinka iyo xirfadaha amniga sugidiisa la xiriirta. diyaarad militariga Turkiga ay leeyihiin oo socodka dhigatay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho ayaa keentay ciidankaasi iyo qalabkooda iyo hubkooda intuba. warar kale aan helina ayaa sheegaya in ciidankaasi sidoo kale ay ka gacan geysan doonaan sugidda ammaanka goobaha muhiimka ah sida halka doorashada ay ka dhici doonto ee magaalada Muqdisho waa doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaanka. xaqiijinta ammaanka madaxtooyada, aeroboortka, degada iyo goobo kale oo muhiim ah. talabadan uu Turkiga qaaday waxay xoojinaysaa isku sii bilaarintiisa dhinaca siyaasadda Soomaaliya iyo in dowladda Turkiga ay muujinayso inay tahay dowladda ugu saameynta badan ee dowladaha xiriirka la leh dowladda federaalka ee Soomaaliya. magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya abaabul ciidan oo xoog leh oo xaqiijinta ammaanka doorashooyinka loogu talagalay. wahagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka shabakada shacabka TV. daawade channelka subscribe ku ahaado muuqaalkaygana like noo saar. dhinaca kale aynu eegno maamulka Soomaalida NFD ee dowladda Kenya ka tirsan ayaa la qorsheenayaa in ay ka goostaan dowladda Kenya una soo goostaan Soomaaliya. arrintan waxaa ku howlan siyaasiyiin wadaniyada Soomaalinimo ay ku weyn tahay, balse qaarkood ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo qaarkood oo ka maqan dhinaca dalka Kenya. shirar ayaa ka socday dhawaanahan dalka dibadiisa iyo magaalada Muqdisho. ujeedkana wuxuu yahay in Soomaalida NFD ay maamul ahaan noqdaan kuwa hoostaga dhanka dowladda Soomaaliya. arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyada oo la filayo go'aanka ICJ ee loo xugmi doono Soomaaliya badeeda. dowladda Kenya waxay qabtaa cabsi aad weyn oo ah in ay weyn karto dhammaan dhulka xeebaha xiga ee dhanka Soomaaliya soo xiga gaar ahaan gobolka waqooyi bari. sidaas daraadeed Kenya waxay ku mashquulsaneed dhawaanahan soo iibsashada gaadiid casri ah. dhawaana goobaha ay gaadiidka ka soo iibsatay dowladda Kenya waxaa ka mid ah dhinaca dalka Turkiga oo ay ka iibsadeen gaadiid noocoodu aad u sareeyo, lacag ahaanna aad u tiro badan. haddaba haddii NFD ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya waxa aanay shaki ku jirin sida la saadaalinayo in maamulka Kilinka Shanaad ama sidoo kale Soomaali Galbeed iyaguna ay Soomaaliya dib ugu soo goosan doonaan. waa isbedel weyn oo laga rajeynayo inuu ka dhaco geeska Afrika. arrimahanna waxaana shaki ku jirin haddii madaxweyne Farmaajo talada dalka dib ugu soo laabto in ay si dhab ah u rumow doonaan. guud ahaan daawadayaasha qiimaha naga mudan xiliga kan wararka shacabka TV ayaa intaasi ku dhan. daawadayaal waad ku mahadsantiin daawashada wararkana. qaybaha kale ee wararka shacabka TV inta dib kali doontaan nabad geliyo tan.